xayawaankan waxaa la yiraahdaa baciid. wuxuu badanaa sameeyaa meeshuu maanta ka cabo ayuu berri yimaadaa si uu markale biyo ugu cabo. baciidkan wuxuu leeyahay gees adag oo ku dagaalami karo. haddartaan waad aragtaan meesha waxaa ka agdhow waraabe, balse baciidku uu ka warhayaa in erida uu joogo waraabo, wayna ceersadeen. baciidka wuxuu ka mid yahay xayawaanada ugu adag ee duurjoogta marka la yiraahdo inuu isdifaaco. xayawaanka la yiraahdo baciid wuxuu ku nool yahay meelaha kulul saxaraha ah, wuxuuna yahay xayawaanka ugu adag ee noolaan kara muddo inuusan biyo cabin. sida la yiraahdo geela waa xayawaanka ugu adag ee adkeysan kara inuusan biyo cabin, balse baciidkan waa sidaas oo kale. sidaan hore idinku sheegay wuxuu leeyahay geeso mudac oo kale ah oo xayawaankii u geliyo ama uu ku mudo dhiman kara. waad u jeedaan xayawaanka baciidka wuxuu leeyahay lab iyo dhidig. labka ayaa ah midka aad u dagaalama oo dhediga ka celiya xayawaanada soo weerara. marka sidaas aan dhahayo ama aan leeyahay xayawaanada dhan ayaa sidaas ah, macala bini'aadanka ayaa sidaas ah. waad u jeedaan baciidka waxaa laga yaabaa inuu noolaado sidaan hore idinku sheegay biyo la'aan, balse sidaan hore idinku sheegay wuxuu leeyahay geesi mudac. haddeertaan waxaa soo weerari rabo libaax. waad u jeedaan baciidka mar hore ayuu arkay libaaxan, difaac ayuuna galay. sidaad aragtaan waa labo libaax oo yaryar, waxay rabaan inay weeraraan baciidkan. baciidkana muxuu asiye libaaxa weyn ayaa wax ka qaadi karin. carruurtaana waxay rabaan inay tijaabiyaan xirfadooda wax qabasho, ayna ku tijaabiyaan baciidkan. balse sidaan hore idinku sheegay baciidka ma aha xayawaan loo dhawaan karo. mujeedaa libaaxii yaraa difaac ayuu xirtay, wuxuu rabaa inuu ugaarsado, uu taraagareeyo inuu baciidkan qabto. talow maxaa dhici doona ila daawo. mujeedaa libaaxa yar uu isoo qarqarinayaa, mujeedaa uu soo dhakanayaa. hal mar ayuu wuxuu rabaa inuu baciidkan qabto. bay qabteen. mujeedaa sidaan hore idinku sheegay baciidka wuxuu leeyahay muxuu geesahaas dheerdheer, uuna ka cararay. mujeedaa maxaa yeelay aabbahood iyo hooyadood ayaa qabo waayey baciidkan. waxay rabaan iyagoo yaryar inay qabtaan, geesaha ayay ka mareen, wax walbay samaynayaan, lagama yaabo inay qabtaan. maxaa yeelay geesihiis ayuu badanaa ku fakadaa. labadii caruur way iska daalihin. waad u jeedaan sida isku jeedaan soo la sameynaya geesaha inuu ku qaado wuxuu samaynayaa cirka uu ka keenaya. labadii libaax way iska baxeen, baciidkiina wuxuu ku baxsaday labadiisii geesood. sidaan hore idinku sheegay waad u jeedaan way iska baashaalayaan, wax dhib ama haysta dirtaan. ilaah ayaa siiyey waxay ku dagaalamaan. annagana waynu leenahay sidan oo kale baciidka gacmo iyo lug ayuu ilaahna siiyey aan ku dagaalano. mujeedaa waxaa laga yaabaa inuu yahay shabeel ama harmacad, wuxuu rabaa inuu bursado baciidkan. mujeedaa baciidka laakiinse ma naxa, dhammaantoodu lugaha iskugu dhuftay, wuu ceersada. ujeedaa
fiir biciidka ma aha xayawaan naxo mujeda lagama yaabo inuu naxo geesuhu isku laguhu iskugu daray wallah adinka inay taallaa u dhahay saaxiib uu ceersaday